waxaan leeyahay laab saalax weli laba jir baa tahay la garaada raaxada maad barasil walaalo xildhibaan mubaarig xuseen maxamed xeeldheere oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ee laga soo doortay gobolka Saaxil oo maalmihii u dambeeyay u kuurgalayay xaaladaha abaaraha ee gobolada Saaxil iyo Togdheer oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Berbera ayaa sharci darro ku tilmaamay in xildhibaan ka mid ah aqalka wakiilada Somaliland oo ku baaqo mudaharaad xildhibaanka oo ka hadlayna waxa hadaladiisii ka mid ahaa waxaan leeyahay laab saalax weli laba jir baa tahay la garaada raaxada maad barasil walaalo waxaa jirtay maanso aan tiriyey geerin ciyaal ka tiriyey oo la xashe maynu gabaaneen maansadaasaan ka soo qaadanaya tudc ka mid ah oo odhanaya haddii kale xor baatee xabaashii godkii shalay iyo xamartay eedeen maatada u xagaasaar marka halkaa waxaa u muuqata in gacan kale waxaanan kala garanayn in muxuu ahaayey laab saalax ay aqoon darro ka tahay iyo in gacan kale ay ku jirto oo cadowgeenna ula shaqaynayo marka waxaan soo jeedinayaa lama amniga iyo sirdoonkaba inay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqiisa waxa aan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo hadalladii xildhibaan laab saalax ee xanafta lahaa ee kicinta dadweynaha reer Hargeysa iyo guud ahaanba Somaliland ee uu ku baaqayay in golaha wakiilada hortooda oo wadnihii magaalada ee madaxtooyadina tahay la isugu yimaado waxaan u arkaa arrintaa inay tahay ku digasho dadweynaha reer Hargeysa ee ay saameeyeen abaarta iyo sixir bararku ee u baahan gurmadka iyo taakulaynta iyo in cashuuraha laga dhimo oo golaha dibeegis ku sameeyo xeerarka maaliyadda ee waqti xaadirka hor yaalla si cashuur dhimis weyn loo sameeyo sida darteed waxaan u fahmayaa inay arrintaasi tahay oo inuu iska horkeeno laamaha amniga iyo dadweynaha reer Hargeysa si ay u dhacdo dhimasho dhaawac iyo boob hanti dadweyne iyo khalkhal amniga ku yimaada waayo amniguna wuxuu nagu joogaa wixii loo soo maray ee xasilinta dalka loo soo maray ayuu halmaamay maantana in cadowgeenu ku farxo khalkhalka ka yimaada arrintaa aad iyo aad baan uga xunahay geesta kalena xildhibaan mubaarig xuseen maxamed oo hadalkiisa sii wataa ayaa sheegay in xaaladda abaarta iyo sixir bararka ee lagu jira haatan lagaga bixi karo in shacabka ganacsatada iyo dawladda Somaliland ay si wada jira gacmaha isku qabsadaan waxaynu u baahannahay marka ay musiibooyinka dabiiciga oo kala yimaadaan gaar ahaan abaartu inaan isku tashanno qorshe qaran oo laga midaysayna oo baarlamaan ahaan iyo xukuumad iyo intuba iyo dadweynuhu ay ka midaysan aynu samaysano oo muxuu ahaayay laga hortago musiibooyinka dabiiciga soo noqnoqday oo aynu la nimaadno aqli iyo fikir iyo qorshe aynu keeno halkii aynu dadweynaha ka kicin lahayn waxaan ganacsatada u soo jeedinayaa sidii ay ugu gurman jireen shacabkooda horeba inay haddana ugu gurmadaan oo ay badbaadiyaan qiimaha maciishadana ay dhimaan madaxweynahana waxaan u soo jeedinayaa inuu muxuu ahaayey shidaalka fasaxo oo inta abaaru socdaan shidaalka uu ka dhigo free cid waliba keento silfartii wasiirku sheegay in muxuu ahaa ay hoos loo dhigay oo tayada shidaalka kor loo qaadayo taana in muxuu ahaa meesha laga saaro oo maanta uma baahnin tayo shidaal inaynu ilaalino laakiin waxaynu u baahanahay inaynu nafaha dadkeena badbaadino waxaynu ognahay shidaalku waxyaabaha ugu faraha badan oo isticmaal yahay ee uu ku xidhan yahay sida awgeed waa in aan tayada shidaalka la ilaalin ee muxuu ahaa shidaalka la fasaxo ugu dambeyntiina xildhibaan mubaarig xuseen maxamed xeeldheere ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ugu baaqay inuu xilka qaadis ku sameeyo mas'uuliyiinta ka tirsan xukuumaddiisa ee ay ka soo taagan yihiin shacabku mudane madaxweyne waxaan ku soo jeedinayaa inaanad cidna ku raali gelin mas'uulkii shaqadiisa ka soo bixi waaya ee dadweynaha ka hor yimaado oo marka aad asisho oo aad dadweynaha ka hor kaxayso maadaama aad qaranka u dhaaratay annaguna aan u dhaaranay saas ay ku soo jeedan madaxweyne waxaan gurmajooga iyo asxaabta mucaaradka iyo ganacsatada ugu baaqaya in gamcaha la isqabsado oo maanta xaaladda abaarta in haysata aynu muxuu ahaa gamcaha iska qabsano oo aynu ka gurmano oo muxuu ahaa sidii awalba aynu u samata bixin jirnay aynu u samata bixinno hadhowna markaynu ka baxno aynu wada xisaabtanno
waayo haddii aynu intaa isku tashigeynaa dhinacii xukuumadda qurba joogta axsaabta mucaaradka kuwa ururada furtay intaba haddaynu muxuu ahaaye isku tashan weyno oo aynu ku eegno dadka leecanaya muxuu ahaye liita waxay tahay dee kama inaan soo bixin wixii laynoo doortay waxaan rajaynayaa golaha wakiiladu inuu kalfadhigiisa dambe ku noqon doono oo dib eegis uu samayn doono xeerarkii maaliyadda takaaliifta iyo cashuuraadka dalka ka jirana oo dib eegis ku sameeyo si markaa loo sameeyo cashuur dhimis ballaaran xukuumaddana waxaan rajaynayaa in iyaduna ay cashuur dhimista horena u samaysay imikana ay tallaabo kala qaado oo ay dhinto Gamta Ismaan Cali wararka Royal TV Berbera